سلطان عثمان وحلي بهجر حجسنا ويشرتها وأنا تشري دون تمام سلطان عثمان لي وكادي بهجر حجس ويشرتها أيود عقل شامبير حق السلطان كهبر يرسنا ويري بهجر حجس وحشرنا ورتمرك ورجع حجس وسعيد يا داود وحكى سكيو الله يلاه بهجر حجس يعني قرن معي ما يشتري أنا ما شرته أرنتاس أي الله هذا هي محاك حقيقة محاسك كفيقة مقال كان أيات كنت أولا سوارد لك قرينيس أنا كوي فينيا ما يقرأت إن متكلم وجدته تنتال أيو سوري دي عاقل شامبير أنت أنا أولاد وحبك ترين إن أولاد وحكي جيسن إن أولاد إن هرسمو يدمين كرين أنا أنت سأرتي لليلسي wuxuu yiri dadkan ay dhaliilay hatta caaqil champion ahay wadadkan colaada waxba ka tarin caasha waa dadka goob dagaal marka la joogo aan dagaalami karayn dagaal ka hadli karayn waxna ka oran karin dadoogu ay hadlayay laba nin baa ugu weynaa waa sultaan Cismaan iyo boqor Cismaan Buurmadow labadooduna hadaladan ayay kala yiraahdeen ama mid sandaladeedu guud oo maxay mas'uuliyadii guud ee sandaladeed haysabay uu ku bixi karaa waxay cid aan ahayn waa kooxun meel isugu tagtay waxaan leenahay kali gelin qolada isaaq ee halka ka hadashay reer Isxaaq ama bahagar xajis la baxday arrinkaasi halkeedii may marin arrinka raali gelin ka bixiyeen talada guud ee gaar xajisna waxa uu dhamaysaa ragga Hargeysa laga diray meesha hogaaminayay oo jiif caaqilkiisa saaxiibka ahin baa ku jiray marka su'aashan isweydiinay waxay tahay boqor Cismaan oo Buurmadow colaad inta loo ka garmaayay miya inta aan colaada waxba ka tarin in colaada wax ka geysan aniga inta sawirtii daliilisi inta waa sida la yiri weeyay may garat horta marka koobaad caaqil champion wuxuu ku arkaysanayaa bahagar xajisana iyo reer jira bahagar xajisana way jirtaa waana jiri doontaa waan Sultaan Cismaan leh halka Sultaan Cismaanna uu leeyahay bahagar xajis wax jira maaha وفيك ويان ورتمرك ورجع حجس وسعيد يا داود وحكى سكيو الله يلاه بهجر حجس يعني قرن معي ما يشتري أنا ما شرته لبلا ودا marka saaw eegay waxa ruu sheegaya Sultaan Cismaan baa ruu sheegaya sababta ku sheegayana waa ku sheegaya horta tusaale hartaan ku siiyo intaan arinta cadeynteeda ku tusin horta bahagar xajis waayo waxa inoo sheegaya حشوايو أبو طبعا وحوي وقروي بعد الرقم قارناس وعيد قال يسحق واي وحيسكو جرا واي واسكو وديغا حكومه يوحد waxa weeyaan buu bahagar xajis waa ciidan galay Isxaaq markay isku jiraan isagoo daliil ka dhigaya maadaama ay labada reer isku degan yihiin oo say isu dhex degan yihiin inay isku baahan yihiin وديغا حكومه يوحد haddaba su'aashu waxay tahay ciidan galay Arab miyaan wada degin oo aan isku degaan ahayn hadiiba degaan lagu noqonayo baho su'aashaas ayaan weydiinayaa aan ku soo noqdo mawduucayga haddaba bahagar xajis wax jira ma laakiinse waxa jira baha ciidan gale sida xaqiiqadu tahay weeyaan horta marka koobaad ciidan gale magac reer maaha waa magac Arab iyo Saciid Garxajis la isku yiraahdo sida uu inoo sheegay beeshii la oran jiray ciidan gale oo imaka Arab iyo ciidan gale la kala yiraahdo ciidan galuhu abtirsiin maaha waa magac nin arayla la yiraahdo Arab oo maxaadkuna xabixiyay sida uu ku sheegay ciidan galuhu abtirsiin maaha laakiin waa magac guud oo ka dhaxeeya Arab iyo Saciid Garxajis xilli dagaal la galayo laha wariya iyo ciidanka galaya iyo wax iska celinaya waa labada reer isbahaystaan oo isku deegaana oo isu miganaysa war wixii caruur iyo naaga iyo jilcsan fogeeyaa la yiri kolka la yiri war wixii ciidan galow soo had buur haddaba su'aashu waxay tahay labada reer noocaas ciidan gal la isku oran jiray isu hiili jiray isku deegaanka ha haday iyagu noqon waayeen baha ciidan gal noqon waayeen
sidee reerka kale u oran isxaaq iyo ciidagalo noqon kara baaha garxajis mise garxajis ahaan bay baaha ku noqdeen dega eeg waad oran kartaa labadana isu dhow oo waa isku nin weeyaan xaq bay u leeyihiin warun waa isku ismaaciil isxaaq weeyaan walmas garxajis weeyaan laakiin se daliil igama dhigi kartid waa isku degaan bay ku noqdeen isku bah haddii cidi isku degaan bah ku noqonayso ama gaanshaanbuur ku noqonayso ciidagaliya arab ayaa isku bah hadalladaan aadka ula yaaba waxaa ka mid ahaa caaqil jaabir muxuu yidhi hadalladaa dhiifta la yidhaahdo oo weliba kuwa tolka kala kaxaynaya yidhaahdo hadalladu ku eedanayay caaqil jaabir suldaan cismaan suldaankii habar yoonis waxaa ka mid ah wuxuu yidhi hadallo dhiifa inaad ku hadasho maahayn oo tolka kala kaxaynaya oo uga jeeday garxajis kala fogeynaya okay garxajis in la kala fogeeyo waa xaaraan laakiin magaca reer Sheekh Isxaaq in la kala fogeeyo waa xalaal halkaas eeg arab iyo ciidagala uma malanayo laba reer isugu dhaweyna jiraan way isdhex degan yihiin ya taha wadikii ha ciidagala waxa bay ku dhinteen dacwada Soomaaliya wuxuu ku dhintay waa deegaankiisi weeyaa ya anu hal kamid baan oranaya madar sababta hadaan marka saaw yaga caaqil jaambir iyo suldaan cismaan marka laga hadlayo marka runtii si sheegayno wax saxsan suldaan cismaan baa saxsan marka koowaad wuxuu ka hadlay difaaca qarannimada Soomaaliland mar labaadka wuxuu ka hadlay in reer Sheekh Isxaaq isku dhifay iska dagaalamaan oo dalkooda difaacaan haday dhanka tadawucay tahay haday dhanka jiidi kala tahay Soomaaliland tahayba wax ka hadlaya midnimada reer Sheekh Isxaaq buu ka hadlayay marka labadan waxa afka reer Sheekh Isxaaq ku hadli karaa ama nagu matalaadaan nahay arab afkooda ku hadlaya ciidagal afkooda ku hadlaya habarweys afkooda ku hadlaya haba jecel afkooda ku hadlaya habar awal afkooda ku hadlaya guud ahaan Soomaaliland ku hadlaya suldaan cismaan maran kara may garatay ilmaada reeyal dadku inay runta sheegaan baa fiican hataa runta igu nacayso ay doon karaa dad waxaan leeyahay ciidagale saddex arrimood arab kaama geeyo walaalayaal runta ku laqsinaya marka koobaad aan ku soo bilaabay gobolnimada gabiilay gobolnimada balgubadne inaad dafurto tiraahdo salaxlay balgubadnimo hoos ma isa hargeysa hoos tagaysa adoo gobolnimada balgubadna diidaya taa kaama geeyo arab waa qodobka koobaad ugu ogna salaxlay waa diiday in hoos tagto balgubadle qodobka labaad aanu ka geeyin arab baan ku sheegay walaalo arab oo la soo weeraray caruurtii simaatiisi la laayay saadintiisi la aftubay dhibaat gurihiisa la gubay kaama geeyna tiraahdo waxba looma geysin oo waliba odagiina inigu weynaa intuu soo fadhiisto waa jamcsheele inuu waxa ku hadlo arab nigama geeyo odayaasha lama aftuubin baad leedahay yaa aftuubay odayaasha ciidanku markuu meesha soo galay weeraray صوت muuqaalada la soo bandhigay Sawta muuqaaladii oo dhasa. waxa weeyaan la handadayo oo la leeyahay baabuur arinta saddexaad ee aanu ka geeyin waxay tahay arabo mataankaagiya isku bahmagaada isku tiid inaad soo fadhiisato inaad tiraahdo anaga baagal xisba la yiraahdaa ogaadeen bar qayb kamid ah heshiis la galeynaa dagaalku dawcali ma soo dhaafayo kaama geeyo adoo qiil ka dhiganaya inay saxaq iyo ciidagale isku degaan yihiin war haddii ciid degaan tahay ku bahoobayso ama bahay isugu noqonayso dee ciidagale waxa bahay isu noqonaya nimanka dee ciidagale la yiraahdo iyo arab haddii ciidi degaan bah ku noqonayso walaalo reerahan ciidagale la isku yiraahdo ee arab iyo reerka kale ka mid yihiin baa isku baha isku degaana oo iyagana wada isdaray saddexda arrimo walaa nigama geeyeen markaas nigama geeyaan suldaan cismaan uu cibaadaystay magaca habar jecel ayuu ku hadlay magaca habar walba ku hadlay magaca arab ku hadlay magaca Soomaaliland jecel ku hadlay magaca Soomaaliland ku hadlay macal Soomaaliland ku hadlay magaca qadiyada Soomaaliland ku hadlay dalkiina hal difaacu isagana matala oo kugu maalay ما قرأت شو بيقول على سوشيجينا قف كأنه خلطان وين قبلنا يا قف كأنه خلطان وين قبلنا إيه ما دري وحنا لا عثمان سلطان عثمان يكستوانا تشعنا رمات صندلتي وحنا قشوا توالك يدش عقل شابيرو توابية وحنا تشعنا إذا نيسوتش توابين ولا صلادين تما كل حد صلاة ما صلاة كلام هذا
war cadowgii reerii dadka kale u jawaab talada sanad siinaya